gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleebaan Maxamuud Aadan ayaa waxa uu dalalka beesha caalamka ku canaantay in aanay dhax ka ahayn arrimaha Soomaaliland iyo Soomaaliya isla markaana waxa uu beesha caalamka ugu hanjabay hadii aanay dhax ka noqonayn arrimaha Soomaaliland iyo Soomaaliya in ay Soomaaliland ka dhaxbaxdo beesha caalamku gudoomiyaha ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay arrinta wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya isagoo arrimahan si faahfaahsan uga hadlayana waxa hadaladiisii kamid ahaa hadalku waxay la tahay madaxweynaha dhameeyay madaxweynaha waxaan hadda ku khilaafo arrimihii taagtaagnaa intii uu yiri waxaan maanta ku khilaafo ku ayid mooyee ma hayo ugu horeysa dan iska dulmaro waxa weeye cadowgeenu waa badan yahay aynu Soomaaliland nahay waa cadow badan ama Soomaaliya ha noqdo ama dawladaha kaleba ha noqdee cadowgeenu waa badan yahay adduunku inuu inoo taliyana wuu rabaa inaynu wada hadalana aynu wax iska celinayno ma ogola wada hadalkii bay naga xidhiyo waxay yidhaaheen adduunka kaba mid tihiin marka waxa quraynu maanta dugsanaa toob waa midnimadeena weey 30 sanadood 29 sanadood midnimadeenu kaga soo gudub اعتراف لي midnimadeenu kaga soo gudub waxaynu noqonay ma jiro waynu jecelaynayno golayaasha adduunka fariisano laakiin waxaynu yeelanay oo inaga maqan runtii ma jiro adduunyada diidinu اعترافo taynabad gasho midnimadeenu ilaashanayna inta aynu isku duubanahay wax waxina yeeli karaa ma jiro ilaahayna waa la kaashanayna ta kale arrintan aafadan cudurkan adduunka ilaahay maanta ku sabab uga dhigay dee baryu maynu ilaahay ku leenna ilaahuna badbaadi baryaynu ilaahay ku leenahay waana cudur dilaaye dadkeenu waa dhagaadagi adduunyada baqiyo xerooye inaga makhaadaha iyo meesha qaadka lagu cunayo iyo mabrisyada iyo maxayna dhigay maynu yar gaban oo hadii aafadaas wixii ilaahay qorayna qoran intay meerayso dadweyne waynu ka gabanno ilaahuun baa gabood bixiye laakiin aan ka gabanno oo dhagaaday iska dayno oo madaxweynuhu ka hadal horena uga hadal maantana ku celi waxay la tahay aynu sururino waxa la yidhi haysu wareegina ardayn mayne aynu kala fogaano masaafada aynu isu jirno dayn mayne aynu masaafada isu jirno ilaahayna aan barino taa iyada xubnaha kan maalintii dhaweyd madaxweynuhu gudbiyey golihuna ku celiyey waxay la tahay dee golihii dhaqanna way u leeyihiin intaa ay fasaxa ku maqan yihiin dhammaatayba waxba kama badani ma hadhin aan sugno goluhu xor buu u yahay laakiin madaxweynuhu dee wuxuu xaq u leeyahay inuu yidhaaho arrintaasaan gartae intaa ha la aqbalo laakiin xor buu u yahay aan sugno markay soo ururaanna waa inta malaha rabadaan ka hadhae markay intay soo ururaanna dee waynaynu ku celinaa waynaynu
علينا إيموي محايا هذا يزباش محايا هذا سلادينتي madaxda qabeedkii iyo dad badan oo hadda cid waliba waysa siisay inay u tiraaho Somaliland shirkii labada beelood ahaa ee Burco ee beelaha kale oo dhan iyo axsaabtiyo ugu tageenna dhowr suldaan baa arrintaa ka hadlay inay iyagu wada hadallada adduunka xaq u leeyihiin inay ka hadlaan oo ka hadlaan waxay la tahay qarankanu cid buu doortaa hawl walba cid buu u doortaa madaxweynuhu u doorta madaxweynaha iyo ciddii isagu markaa tala mooda ee u raacaysa ayaa dee qarankan u tiraahda labada golole uma yidhaahdaan madax dhaqameeda idinna uma tidhaahdaan aqoonyaha dibad meerayaana uma yidhaahdo nin kaloo siyaasi sheegtay oo meelahan meermeerayaana uma odhanayo hadduu isagu u baahdo ahlan wasahlan dee isagaa kaxaysan laakiin qaranka waxaa u yidhaaha madaxweyne isagaynu u dooranay howlaha haddaynu ku dhaleelno dee isagaynu beddelayna laakiin hawshiisii isagoo gudanaya dee adeerayaalo ugu tegi mayno markaa waxaan leenahay allah idin dhowree inaad madax tihiin oo qaranka madaxdiisa ka mid tihiin salaadiinay waa idinla ognahay laakiin cid walba hawsheeda gaarkaana ha loo daayo hawshaa cid baa leh cid baynu ku ognahay markuu inoo yeedho waxaynu leenahay ahlan wasahlan saasaanu qabnaa laakiin isaga adduunka wax odhanaya oo dawla tegaya marka aan mar labaad baan ku celinayaa waryaana aan ducaysan aan walqallo aan ducaysano ciddii hadba markaa hawsha lena aynu ku ayidno oo kula shaqayno aynu kula shaqayno waxay la tahay daana waan joogaaye hadba waxbaan ilaawayahay hadda waxbaan iska ilaawayahay waa ii furantahay aniga mar walba waan ka daba tegi inagoo shirka ku kala tagnay haddaan wax soo xusuusto waan ka daba tegi aynu gacmaa isqabsanno wada jir iyo midnimo adduunka ku waajahno aad ba u mahadsan meediyaha waxaa ku jirta prime ministerka xasan khayre inuu yidhi anaa lay xil saaray Somaliland wuxuu kaloo ku daray annaga isku qolaanuna farmaajo necab yihiin annagu isku qolaanuna anaa soo dhammaynaya rag badan oo innaga ahina waa u raariciyeen waxaasna wax ka jira ma jiraan xukuumadda talada ugu horeysa xukuumadda leh wixii madax dhaqameeda iyo wixii aqoonyahana marka ay timaado waqtigeedu wixii tala ay ku leeyihiin dee waa lagala tashanayaa maxaynu yeelnaa waa arrin masiiriya oo dadka oo dhan ka dhaxaysa waxa weeye qof kastoo wax la moodo talada waa la weydiinaya laakiin dee madax dhaqameedka inay yidhaahaan u qaateen in la yaacayo oo meesha loo kala horeynayo waxa weeye Somaliland tegi mayso shir ayan ogeyn waxa ka soo baxayana la tegi maayo marka la tegayana dee waa xukuumadda ay noo sheegaysaa oranaysaa waxaasaa jiray aynu waxa yeel wada tashi baa lagu tegayaa iska orod maaha qolooyinka dee yaacayaana madax dhaqameedyaduna waa madax dhaqameedyadii talay leeyihiin waa lagala tashanaya marka waqtigeedu yimaado laakiin iyagu inay hadda waddo sii jeexaan maaha waxay ahayd inay tuulooyinka tagaan xaafadihii tagaan raggii ay wakiilka ahaayeen u tagaan inay ka waaniyaan cudurkan sidii looga badbaadi lahaa waxayna ila tahay waxa weeye inaynu iska dhigno wixii kale ama siyaasad ha noqoto ama mid kale ha noqoto inaynu u jeesano sidii dadkeena aynu u badbaadin lahayn oo miyiga loo tagi lahaa saxaafaddu miyiga u tagi lahayd oo miyiga loo sheegi lahaa ilaa qofku markuu magaalada ka tago miyigiibuu tegayaa miyigii wax alla waxay haystaan
de wax xumad jabin xitaa ma haystaan marka xooggeena iyo midnimadeena aan saaro sidii dadka loo badbaadin lahaa wixii markaynu ilaahay ina ka dulqaado wixii dambeenu soo noqon lahayna de waa meesheeda mid labaad saddexaad waxa weeye tan golaha baarlamaanka wakiilada laba xubnood bay soo celiyeen cod bay u qaadeen labada xubnood waa soo celiyeen iyagoo aan cidna ku xumaynayn cidna qofna ayan dan shakhsiga ka lahayn waxay loo ekaanaatay labada xubnood inay celiyaan xisbiyada labada xisbi ee mucaaradka iyo madaxweynuhuna waxay isla gashay labada xubnood baanu soo celinaynaa annagu wixii sharciya wixii shuruuca waa shuruuc waxa weeye golaha fasax buu ku jiraa maalintii weydna wuxuu ku soo noqday isagoo waxaan u fasaxnay waxay ahayd waxaan soconaya inaanu ka 70 jir miidhan baanu nahay dad badanna waa habaarayaanoo doonaya golaha inay soo galaan madaxweynahaanu qaadi kari weyne maalintii weyd waxaan iska dhimanay aynu isu nimaadno waa anagii fadhi aan caadi ahayn isugu yimi goluhuna xor weeye waa ka madax bannaan yahay laakiin dee waxaanu tixgelinaynaa xisbiyada madaxweynaha talada odayaasha baanu tixgelinaynaa waxa weeye goluhu markuu fasaxa ka soo noqdo haddii labada cusbaan la keenayo iyo haddii laba cusub la keenayo iyo haddii labadii hore lagu soo celiyo golaha wakiiladu diyaar bay u yihiin in la soo celiyo labada xubnood la keeno komishankuna inoo dhammaystirmo doorashadiina dee wixii balqabanaya iyagay jirtaa aynu horta komishankii dhammaysano aynuna isugu tagno sidii aynu dadka u waanin lahayn miyigana loo baxo saxaafadduna joojiso waxyawan kale ay waraysanayaan oo ay dadka wacyigeliyaan waayo iyaga aad baa loo maqlayaa tviyada xukuumadduna xoog inay saarto tviyada qaranka